السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawadayaal kusoo dhawaada channelka Sagaalka Media. Qodobbadeena ugu waaweyn maanta waxay kala yihiin maamulka Galmudug iyo Hirshabelle oo loo diray qalabka looga hortagayo xanuunka coronavirus. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo 29 sano kadib yeelatay xogyo rasmi ah. Faafahin dheeraad ayaa ku maqli doontaan. Dhankaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah doorashadii sanadkan ka dhici lahayd Itoobiya oo dib loo dhigay. Wasiir isku dilay cudurka coronavirus dartiis. magacaygu waa Muslim Nasiib. fadlan haddaan cusubto channelkan subscribe inoo saar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan. haatan kusoo dhawaada warkii faahfaahsan. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad oo looga hortagayo xanuunka coronavirus u dirtay maamulka Galmudug iyo Hirshabelle, kuwaas oo qayb ka ah deeq dowladda la soo gaarsiiyey oo loogu talagalay guud ahaan in la gaarsiiyo dalka intiisa kale. qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa maanta u sii dhiibtay maamulka Galmudug iyo Hirshabelle qalab loogu talagalay ka hortagga cudurka corona. deeqdan ayaa dowladda Soomaaliya waxaa soo Check deeqdan ka timid maalqabeenshiyaha u dhashay ayaa waxa uu sheegay in uu talagalay wadamada Afrikaanka ah ee laga helay kiisaska la xiriira cudurka corona ee adduunyada ku sii fidayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa yeelatay xogyaha joogtada wasaaraddaasi, kaasi oo loo magacaabo Danjile Maxamed Cali Nuur oo noqonaya xogyaha rasmiga ah wixii ka dambeeyay 26 Janaayo sanadii 1991 xilligaas oo burburtay dowladdii dhexe ee dalka. Maxamed Cali Nuur ayaa hore u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Djibouti, isagoo xilka kala wareegay Maxamed Isaaq Aadan oo si kumeel gaar ah u hayay jagadaasi. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawaad iyo wasiirka dowladda wasaaraddaasi Cabduqaadir Axmed Khayre Cabdi ayaa xilka u kala wareejiyay Danjile Maxamed iyo xoghayihii hore ee kumeel gaarka ahaa kadib munaasabad ka dhacday Muqdisho. dhinaca kale, war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in ujeedku yahay in la dardargeliyo qorshooyinka shaqo ee horyaala. howlaha wasaaradda arrimaha dibadda xilliga dowladii kumeel gaarka ah waxaa maareyn jiray agaasimayaasha wasaaradda, balse ha ahaatan waxaa si rasmi ah shaqadaas u qaban doono xogyaha cusub ee xilka la wareegay. guddiga qaran ee doorashada dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay doorashadii la sugayay ee dalka Itoobiya ka dhici lahayd sanadkan. guddiga doorashada Itoobiya ayaa soo saaray go'aanka dib u dhigista doorashada, isagoo shaaciyay inuusan qaban karin doorashada guud ee Itoobiya xilligii loogu talagalay oo ah Agoosto 29keeda 2020 sababo la xiriira cudurka coronavirus. doorashada guud ee Itoobiya ayaa ahayd mid muhiim u ah dalkaasi, iyadoo lagu waday inay noqoto doorasho si weyn loogu tartamo, inkastoo laga digay in rabshado ka dhalan karaan. wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in wasiir ka tirsan wasaaradda dalkaasi isku dilay sababo la xiriirta cudurka sida weyn ugu faafay adduunyada ee coronavirus. wasiirka maaliyadda ismaamul goboleedka hoose ee waddanka Jarmalka Thomas Schäfer ayaa nafsadiisa gooyay, waxaana meydkiisa laga helay agagaarka wadada tareenka, sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka ay dhacdadan ka dhacday. wararku waxay intaa ku darayaan in dacwad ogayaasha magaalada Westbourne ay rumaysan yihiin in wasiirka isaga naftiisa gooyay, balse lama helin wax faahfaahin oo ku saabsan qaabka uu isku dilay. mas-uulka geeriyooday oo dadka Jarmalka ay ixtiraam badan u hayaan waxa uu ka geeriyooday 2 carruur iyo hooyadood, waxaana la filayaa noloshooda inta ka dhiman inay damaanad qaadayso dowladda dhexe ee waddanka Jarmalka. daawadeen intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wararkeena. warkan warkeena intaa ku muddo waxaan kaga tegaa sidaas iyo ammaano Allah.